الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام يا دمان أخيارتي يا علماء ومجلس كيني صدحات لبدي هروح نفسه هذا الني قيبة كم إذا محاي هيدي تفسير كي وكعياري ولو دعونا هدنا شيكتي أنا مركز طبعا سكوت حلوشيني بل هذا الكيسي عن سيدي كسو قدبيو وحان كو زيادي وحاجة يكي ما دانا معقول على نقنين taana midaad markii horena ka taxadiriy mar walbana ka taxadirayo weeyaan marka muhiimadduna waxa weeyaanuun in la caddeeyo xaqiiqada iyo runta in la sheeguba horta muhiima qofka haddii hadalkiisii lasoo qaado iyo haddii sidiisi loo shido iyo haddii alfaaddiisi lagu soo wariyo wax farqiga u dhexeeya ma jiro taas waa taas taa inta marka kaga gudbo xal waxaynu soo joognay qodobkii 17aad baan u malaynayaa caawana waxaan ku dari doonaa insha allahu dhowr qodob oo kale intuu waqtigu inoo saamaxo waana laga yaabaa mararka qaar kamaduhu inay dheeraadaan ama qodobada mararka qaar inay dheeraadaan baa dhici karta marka taana insha allahu waa layskaga dul qaadan doonaa qodobka aynu caawa ka bilaabayna 18aad waxa weeyaan markii uu marayey waxaan kusoo dhex jirnay suuradihii kasoo warramayay khalqiga iyo awoodda ilaahay subxaana watacaala ayaa markii uu soo gaadhay wain kuntum fii raybin mima nazalna calaa cabdina faatuu bisuuratin min milih wadcuu shuhadaa'akum min duuni illahi in kuntum saadiqiin ayaa markaa ayaddaasuu dur istaagay ayadda macnaheedu waxa weeye wain kuntum haddii aad tihiin waxaa lala hadlayaa gaaladii fii raybin kuwa ka shakisan mima nazalna calaa cabdina addoonkayaga maxamed ah waxaanu ku soo dejinnay haddaad ka shakisan tihiin oo nebinimadiisa aad diidan tihiin oo maxay ahaydee aydan rumaysnayn fa'tuu bisuuratin min milih suurad la mida la kaalaya wadcuu shuhadaa'akum gargaarayaashiin iyo ciddaa miciimadaysaana bal u yeedhay min duuni illahi ilaahay sukadiin kuntum saadiqiin haddaa run sheegaysaa marka ayaddaas waxa ka sii horreeyey inuu xali kusoo dhex jirnay marka iyadana alladii jacala lakum alarda firaashan wasamaa binaa marka waxay inoo harsanayd falaa tajcalu lillahi andaadan wa antum taclamuun marka labadaasaan israacinayna insha allah marka qodobka koowaad aynu ku horrayna ah falaa tajcaluu lillahi andaadan wa antum taclamuun iyadoo xalay baaqi inoo ahayd ayadda ilaahay wuxuu soo tilmaamay in ilaahay inay xaaraan tahay oo aanay bannaanayn in ilaahay shiriik iyo ilaah lala caabudo oo labaad in la sameeyo oo lagu daro sidaa darteed marka hore waxaa layna soo amray ilaahay keligii in la caabudo haddana waxaa laynoo diidey wixii cibaadada munaafiga u ah ee ka hor imanaya oo diidaya oo ah in ilaahay cid kale lagu lamaaneeyo cid kale lala caabudo halkaasaa markuu marayba wuxuu yidhi aayaddan waxaa inooga muuqataa ilaahay markasta wuxuu raadinaya u rabaa maxay in isaga la aqoonsado in la ictiraafo kow maadaama maxay ahayd isagii aan la gelin laakiin mar walba wuxuu rabaa dadka inay ictiraafaan oo ay maxay ahayd ay aaminaan ila waa kan amarka waa kan nahyiga bixinaya falaa tajcalu lillahi andaada wa antum taclamuun leh markaasaa wuxuu sii raaciyey maxaa dhibaatee ku jirta haddii ilaahay shirki loo sameeyo muxuu u diidayaa shirki haddii la sameeyo ilahay muxuu diidaya maxaa dhibaataya ilahay kasoo gaadhisa waxa aan kaga jawaabaynaa qodobkaas oo aan leenahay horta ilaahay inuu alla macruufa yahay oo macluuma oo cid waliba ay taqaan oo aan shaki ku jirin umamkao dhan way isla aaminsan yihin afillaahi shakun faatiri samawati alard walain sa'altahum man khalaqa samawati alard haddaad quraysh weydiiso war cirka iyo dhulka yaa abuuray waxay kugu jawaabayeen ilaahay umamkii hore marka ambiyadoodu u yimaadaan afillaahi shakun faatiri samawati alard lagama doodi jirin war ilaahay oo keliyaa jiray ee usoo leexda ee waxa laga doodi jiray iyaguna ay diidanaayeen ma ilaahay baa bashar annagana la mida soo diray
miyuu malag falowlaa ulqiya calayhi aswiratu min dahab taasuu fircoon lahaa miyaa lagugu soo daadiya dahab soo degeen faramrane iska socda halka ay ummaduhu taagnaayeen waxay ahayd halkii qurayshay taagnaayeen oo ahayd ajacal aalihata ilaahan waaxidan ina hada la shayun cujaab dooddu halkay ka taagan tahay waa cibaadada ee dooddu kuma taagna ilaahay ha la ictiraafo oo inuu jiro ha la aamino xalay waa inagii soo marnay ummadaha adduunyada soo maray ee taariikhdoodu la hayo ma jirto ummad tidhi laba ilaah baa adduunyada ka jira ama ilaahay alla aan ahayn baa jiro adduunyada abuuray ee ummadahan kale waxa ay ku lugo'een waxa ha la caabudo ilaah kale laata ha la caabudo calmaaniyadda ha la caabudo ilaahay yararoo noocaasaysa samaysanayaan marka maray calmaaniyadda samaystaan iyo maray laata samaystaan iyo hata la isku haystaa waa cibaadada laakiin muran kama jiro alle keligii inuu kownka abuuray cid adduunka tigi falaasifadii xataa iyagu aaminsan in ilaahay caalamka aanu abuurin caalamku uu qadim yahay iyagu waxay ku leeyihiin ilaahay waa cilatun waa ciladii caalamkuna waa macluulkii markaa muujibun bidaat weeye isagu ma laha ilaah labaadoo adduunyada abuuri baa jira cid labaadoo sidaa tiri adduunka ma jirto marka umamka oo dhammi way isla waafaqsan yihiin oo fidradooda ilaahay wuu ku abuuray subxaanahu wa tacaala in ilaahay ay garanayaan oo isagu uu jiro oo isagu abuuray oo ilaah labaad oo iyaga abuurtayna aana jirin taa way isla aaminsan yihiin marka sida aad mooday ma aha taas waa ta koobaad intaa hadda markaan kaga gudubno maxay dhibaato ku keenaysaa in shirki la sameeyo ilaahay haddii shirki loo sameeyo haddii kaleba ila waaqanaye maxaa ma layskaba daayo oo maxay ahayde ilaahay u canaananaya ayuu leeyahay falaa tajcalu lilaahi andaadan taasuu muran geliyey waxaad arkaysaa inaanu xataa meel xataa su'aali ka iman karto nindaad qaaday xumbo cuskay meel walba gacanta geli buu isleeyahy masaa'ibka jiri ka mid waxa aan leenahay cibaadadu iyo maxay ahaydey sharciga iyo qawaaniinta iyo qaanuunka ilaahay uu soo dejiyey waa waxa qofka bini'aadanka iyo makhluuqaadka kownka joogaa sacaadadooda iyo liibaantooda ay ku jirto waa qodobka koobaad in haddaba cibaadadii laga tagaa waa halaag iyo masiibo shirkigu waa halaag ummadaha waxa halaaga waa shirkiga waxa ummadda lugooya waa shirkiga ummadda waxa hagaajiyaana waa diinta hadda qaar calmaaniyaa iskale ama calmaaniyadan qaadanaa diin bilaa maxaa dowlad bilaa diina mise dowlad diin jahliga ku marayad arkaysa diintu oxygeenta aynu u baahannahay sidaynu oxygeenta aynaan uga maarmaynin markasta ugu baahannahay si ka badan baynu ugu baahannahay diinta markaa sababta loo leeyay waar shirki ha samaynina waxa weeye halaagooda ku jira halaagooda adduunyo iyo halaagooda aakhiro addoomihii ilaahay markaa wuxuu ku hanuuninayaa oo uu ku dhiiri gelinayaa oo uu tilmaamayaa wixii ay ku hagaagayeen adduunyadooda waxay ku hagaagaysay aakhiradooda waxay ku hagaagaysay waa qodob koobaad waa qodobka labaadee bini'aadanka ilaahay muxuu abuuray bini'aadanka iyagu ismay abuurin waan ognahay shaygu isagu isma abuuro ilaah labaadoo kaloo abuurayna ma jiro bini'aadanka ilaahay cabas iyo ciyaar omuu abuurin ee wuxuu u abuuray hal shay oo ah cibaado in isaga loo maxay ahayde ikhlaas yeelo cibaadada shirkigii iyo gaalnimadiina laga fogaado hadda moobilka aynu isticmaalayno hadlaan oo isgaadhsiin uu noqdo السلام عليكم ورحمة الله الشيخ أبو حسن ما مقشة codka waxaad yar moodaa marmar inuu yar baxayo insha allah bal xagga connection kala soco sheekh insha allah waayahay mara waxay hawada marka qaar iska xaateen waxaynu soo sheegnay shirkaduhu marka ay ashyaa sameeyaan tusaale ahaan mobilkeena oo kaleba ka soo qaad maqsad baa loogu talagalay oo ay u sameeyeen in lagu wada xidhiidho oo connection uu noqdo ayaa loogu talagalay mobilkaas haddaba ma caqligal baa inaad tidhaahdo mobilka waxaan ka dhigayaa qalin aan wax ku qoro oo buugga intaan dul saaro buugga ayaan khad gororaya oo wax ku qoro aan ka dhigaya ama haddii aad tidhaahdo ka warran
moobilkii waxaan ka dhigayaa kursi aan ku fadhiisto ila kuraasidaba waa lagu fadhiistaayo ama haddaad tirahda ka warran moobilkii waxaan ka dhigayaa maxay ahaydee dubbe aan ku garaaco malaa dubbaa dadka qaar baan fahmaynay buruus baa malaa xaggaa looga yaqaanaa buruus aan ku garaaco maxay ahaydee looxaantaan ka dhigayaa dad tiraa ka warran oo shirkadda ku tirahda war moobilka sidan ka daayo laguma talagelinay kurhada qudhaasaa loogu talagalayo wadaado hays wareerinayay bal jooji ood la soo boodo shirkaddu maxay ka faa'iidaysaa maxay ahaydee inay ku tirahdo moobilka sidan ka daa adigaa laguu nasteexanay macnaha bini aadamka ilaahay wuxuu abuuray ee salaaxooda adduunyo iyo wanaagooda adduunyo iyo wanaagooda aakhiro wuxuu ku jiraa waa cibaado sida maanta moobilka aanad dubba wax u garaacda aad uga dhigaynin ayaan adigana macquul aanay ahayn inaad ilaah kala caabuddo haddii kale waad halaagsamaysaa adduun iyo aakhiraba sida moobilkaas u baaba'aya macna aanu u yeelanayne waxtar aanu u lahaanaynin ayaa marka diin la waayo ee shirki iyo gaalnimo iyo ilaah labaad la caabudo loo noqonayaa waxaan macno lahayn adduunyada waxa fasahaadiyaa waa shirkiga waxa adduunyada baabiya ee dadka baabiya waa shirkiga iyo gaalnimadaas markaa si aanay ummaddii u baabi'in ayaa ilaahay wuxuu u diidayaa inay shirki ku dhacaan ma aha hadday ilaahay danaysanaya subxaana wa tacaala laakiin waa dan loo danaynayo bini aadamkii oo loogu danaynayo adduunyada intay joogaan inay nolol wanaagsan ku noolaadaan aakhirana de maqsad baa loo abuuray oo cibaaduu ahaayeen cibaadadiina markaas sidii loogu talagalay intay ula yimaadaan ay badbaadaan oo naar iyo halaag ay ka badbaadaan jannana ay helaan taas marka ilaahay laguma qabsan karo maxaad dadka aad ugu abuurtay cibaadada waa adoo idhaahdo ilaahay muxuu jiraa warkaas war lagaa dhegeysanay ma dadka ilaahay muxuu jiraa markaad leedahay ilaahay muxuu dadka cibaado ugu abuuray waa adoo ilaahay ma jiraa wax isqabanaya maaha su'aal mandiqada meesha keenta tusaale basaad fahamtay shirkiga masaa'ibkiisa dadkii carbeed aan naqaanay ee taariikhdooda maanta aan hayno ee hablahooda gowracayey ee iyagoo nool nool aasayey ee bakhtiga cunayey ee dumarkii aabbayaashood ay ka dhinteen guursanayey fasaadka intaa leg maxaa gaadhay maxaa dhaxadsiiyey ilay diin bay haysteen oo diintii nebi ibraahim bay haysteen oo ilaahay fidradooda wuu abuuray iyadoo saliim abuu ilaahay abuuraye carab maxaa dadkii ugu dullisanaa ka dhigay carab maxay hablahooda u baabiyeen maxay u noqdeen dad dullaysan waa shirkiga iyo gaalnimada carruurtooda inay dilaan waxa u diidi waayey ee damiirka ka qaaday waa shirkiga iyo gaalnimadii marka haddaan nebi maxamed lasoo diri lahayn kan caawa hadlayaana ma jireen baan filayaa dadkii carbeedna adduunyadaba horta ma jirteenba mabay suurta gashanba in carab iyo cajib maanta ay noolaadaan maanta adduunyadaynu joognaa dad tiraa kuwaas waa caraba warkooda inaga daa warukaale calmaaniyiinta maanta ilaaha calmaaniyadda ee reer yurub ay caabudaan ee ah qofku waa xor oo wuxuu doonuu samayn karaa hadduu sinaysanayo hadduu ilmaha iska soo ridayo hadduu qowmuluud noqonayo hadduu isdilayo hadduu sun cabayo maanta inuu qowmuluud la difaaco oo qawaaniin loo sameeyo oo ummaddii radiilada noocaasa lagu faafiyo oo cudurrada ka dhashay aynu ognahay oo tarango'a ku jira aynu ognahay maxaa sababay ilaahul calmaaniyaa sababay shirkiga lagu dhacay ee ah calmaaniyadda in ilaahay lala caabudo oo cibaadadii ilaahay inta laga taga maxay ahayd ilaah labaad halkan lasoo dhigo oo ilaahul calmaaniya ah ilaahul hawa ah ayaa sabab ah in maanta qowmuluud la fasaxa sabab waxa u ahi falaa tajcaluu lillaahi andaadan baa sabab ah calmaaniyaddii ilaahay la garab waday la garab eriyey ayaa sabab u ah haddaba maanta qowmuluudku ma wanaag baa horumar baa ma ummadda nasteexeedibaa qof caqlilo oo maxaa odhan karaa waa wax hagaagsan oo macquulay inaanu jirin baan u malaynaya marka lagu leeyahay falaa tajcaluu lillaahi andaadan macnaheedu ma aha in ilaahay adiga wax kaa ridanaya adigii baa dantaada laga shaqaynaya adigii baa lagu toosinaya adigii baa lagu hagaajinaya marka haddaad tiri aniga hay hagaajinina oo anigu maxay ahaydee aan godka galoon is aaso dee warkaas war la aqbalayo aniguna aanu kaa dhegaysano soomaaliya dadka adduunyadu kaa dhegaysanayaan ma aha waxaan filayaa qodobkaas in layla fahmay oo aan ku soo koobayo marka hadalkiisa aan ka imaado sida
qofku bini'aadankii aanu uga maarmaynin raashin iyo cunto ayaanay macquul ahayn inuu diin uga maarmo. Sababtoo hadduu qofku cunto waayo dee adduunku wuu dhimanaya, wuu waayaya. Adduunyadun buu waayaya. Hadduu oxygen waayo qofku wuu dhimanaya, wax intaa ka badan ku dhacaya ma jiro. Laakiin markuu diin waayo adduunyadiina uu waayayaa, aakhirana uu waayayaa, oo dee nin naari sugaysa weeyaan. Marka inay diintu ka muhiimsan tahay noloshii waxaad ku haysato dhan lambar kow inuu iyada tahay waad arkaysaa marka. Sababta markaa mar walba dadkii cibaadada iyo loo amrayo in ilaahay caabudaan, shirkiga looga fogeynayo, looga durkinayo, waa sababtaas. marka hadduu leeyahay falaa tajcalu lillahi andaadan baan ka xanaaqsanay, dee caawa bal hayna idhaahdo qowluudku waa fasaxan yahaye oo wax wanaagsane ha lay guursado. bal nin ilaah loo soo raadiyey insha allah. waayahay inta markaan ka soo gudubno qodobka maxay ahaydey kale oo ahaa kii markii hore aynu sheegnay oo aayaddii ku xigtay ah, wain kuntum fii raybin ma nazalna calaa cabdina, haddaad ka shakisan tihiin waxaanu ku soo dejinnay addoonka iyagan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, qur-aanka haddaad ka shakisan tihiin bal la kaalayo suurad lamid ah. ilahay markii hore wuxuu ka soo warramay subxaana wa tacaala adiladii ku tusinaysay waxdaayadiisa iyo jiritaankiisa subxaana wa tacaala. jarradaa markii laga soo degay ayaa taqriiru nubuwa la yimido nebiga calayhi salatu wasalaam nebinimadiisa waa idin la xoojinaya. waxyaabaha nebiga nebinimadiisa lagu xoojiyey waxaa ka mid ahaa oo mucjizaadka nebiga ka mid ahaa calayhi salaatu wasalaam ta ugu weyna ah qur-aanka maanta aynu haysanno ee dhaxalkii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam. markaasaa waxaa la yidhi si bal sidii quraysh ifxaam iyo maxay ahaydee afkala qaad loogu ridaa waxaa la yidhi warkan iska dhaafa oo bal isba 9 bilood buu nebigu ku dhashay calayhi salaatu wasalaam, waxna idima dheere eh idinkaaba odayaaloo ka waaweyn oo qaarkii 80 jirriin isagooba 40 baba marayaaba eh bal la kaalaya qur-aankan oo kale warkuba ha dhammaada farda la isku haya maxaa lasaga faanay bal keena. halkaa markii uu marayay markaa doodo soo geliyey ay ka mid ahaayeen maxay ahaydee yaana kala xukumaya iyo yaana kala saaraya iyo qaar carab ka midaaba keenayba sida musaylamo oo kale aba iyo maxay ahaydee zabraa iyo ayaaba keenayba. macnaa wuxuu ka dhigayaa markaa maxay wax iska sahlan oo macnaan lahayn. intaan qodobkaa u gudbin doodiisa 2 qodob baan ka horreysanaya aba 2 muqadimo. muqadimada koowaad waxa weeyaan mid iska caama oo inta badan hadallay siduu ku socdo meesha dhexdeeda ku jira oo jecelahay si gaar ah taa in laga hadlo laga jawaabo insha allah qur-aankana khusaysa. waxna wax dahda tafsiirkan aynu ka hadlaynay aayaadka khusaymin oo mid jumle ahaan qur-aanka khusaysa. waxyaabaha markaa jumle ahaan qur-aanka khusaysuu sheegay waxaa ka mid ahaa inuu yidhi maxay ahaydey qur-aanka xilligii rasuulka lama qorin calayhi salaatu wasalaam. macnaa jahligaa kaa jeeda arkaysa qur-aanku isagoo dhammaystiran oo hal aayad aanay ka maqnayn ayaa xilligii nebiga la qoray calayhi salaatu wasalaam. nebigu wuxuu lahaa katabatul waxyi rag waxyiga qora oo ilaa iyo 42 saxaabi ah oo cumar ibn khadaab iyo abubakar iyo cali iyo maxay ahaydey raggaasoo mucaawiye iyo raggaasoo dham zayd ibn thaabit iyo raggaasoo dhami ay ku jiraan 42 nin baa qur-aanka qori jiray. qur-aanku wax iska aan la qorin ma aha. qur-aanka xilligii nebiga la qoray dhammaantii waa la qoray. laakiin marxaladdii abubakar maxay ahaadaa marxaladda abubakar waxay ahayd qur-aanka in hal meel la iskuma soo ururinin. laakiin waxa la sameeyey qof baa laga yaabaa 5 page buu ku qoranayaa warqad, mid kale wuxuu ku qorayaa maxay ahaydey dhowr xaashiyoodo isugu haysto, mid kale wuxuu ku qorayaa saan. nin walba markaa wixii waa wada qoran yahay laakiin gobol gobol wey ah. wax hal kitaab iskugu ursan sida keenan maanta ma ahayn ee wuxuu ahaa tafaariiq. markaa jumladun baa laga dhigaya. maxaa haddaa jumlad looga dhigaya xilligii nebiga calayhi salatu wasalaam? waxaa looga dhigi waayey maadaama oo naskhigii uu socdo oo laga yaabo aayaadka qaar in la nasakho hal meel inuu isugu geeyo waa u diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam. marka tan labaad nuzuulkii baa dee socday iyo jiritaankii. marka mar haddii taa aamin laga noqday abubakar wuxuu isagu ijtihaadkiisii uu noqday in la isugu keeno jumlad hal kitaab in la isugu soo ururiyo. marka macnaheeduna ma aha marka abubakar baa qur-aanka qoridiisa bilaabay oo intuu raggii xufaad ahaa isugu yeedhiya ha laydinka qore ee kitaabadii waraaqii markii hore qornaa ayaa laysku soo ururinayey. waraaqaha iyo xifdigii baa laysku eegayey. marka oo qodob khaladka labaad uu sheegay waxaa ka mid ahaa si guud qur-aanka u khuseeyey wuxuu yidhi lama nidaaminin oo rasuulku muu nidaaminin ama tartiibta umuu samaynin suuradaha iyo aayaadka.
macnaa waa khalad aad u faadix ah oo la aqbali karin. qur'aanku waa tawqiifi, aayaadkiisa iyo suuradihiisu labaduba waa tawqiifi. aayaadku inay yihiin iyagu tawqiifi masala mujmacun calayha iyadu yahay. suwarkuna waa la mid, sababtoo qur'aanku jumlatan waaxida la soo dejiyey habeenkii laylatul qadriga oo samaa dunya lagu soo dejiyey, inna anzalnaahu fii laylati alqadri. qur'aanka habeen laylatul qadriga gebigiisa la soo dejiyey. qur'aanka sidee loo soo dejiyey? isagoo suuradihiisaas iyo aayaadkiisaasi wada socdaan oo qaabka ay u tartiibsan yihiin ayaa hal habeen ilaahay uu soo dejiyey subxaana wa tacaala. kadib intii nebigu calayhi salaatu wasalaam 33 sannadood marka qur'aanka lagu soo dejinayo ee axwaasha iyo duruufaha kolba uu taagan yahay ayaa loo soo kala hormarinayay. laakiin habeenkaa ugu horreeyey la soo dejiyey laylatul qadri ah, sidaa maanta qur'aankeenu u qoran yahay baa loo soo dejiyey. aayaadkiisu siday yihiin iyo suuradiisu siday isugu xigaan ayay isugu xigaan. taasna iyaduna mid muran la maaha, laakiin dee iskaga kicibi markay kula tahay waxaad doontaa iska oranaysa. akhdaada uu galay waxaa ka mid ah aan waxay ku tiigaalaynin inuu yidhi qur'aanka waxa laga yaabaa qaar baa iska axaado oo markhaatiba inta loo waayey la iskaga daba daray, sida Khuzaym ibn Thaabit aayad laga helayo labada aayadood ugu dambeeyay maxay suurad Tawba. warkaasna war jira maaha. Khuzayma isaga waxa laga helay waxay ahayd qoraalkii labadan aayadood ay ku qoraayeen ee ma aha Khuzayma quraantaaba aayad ka xifsanaa, waayo qur'aanka waxa shad oo tawaatur inuu aayadku tawaatur ay yihiin baa shardi ah. Khuzayma ayaan ka helnay buuri, waxa laga helay Khuzayma waa qoraalkii labadan aayadood iyo maxay ahayd warqadda ay ku qoraayeen ee ma aha Khuzayma quraantaa xifdisanaa oo saxaabada nin kale maxay ahayd garanaya ma jiro. hadda maxaa laga raadinayay? hadda Zayd ibn Thaabit maxay ka raadinayeen kaligiiba agtiisa ka helay? waxa agtiisa laga helay waa qoraalka ee may ahayd xifdigii ama quraan ahaanteeda guud. inta marka ka soo gudubno muqaddimada ah oo insha Allah aan jeclay in mar gaar ay noqoto quraanka iyo shubahaadka jumlahaan ku saabsan iyo bilcjaaska taasiyuna xalqaad gaar ah in noqoto wanaagsan kuwa soo koobkoobina. qodobka labaad u gudbay waxa weeyaan tan qodobkiisa u gudbin ma wajhu al-i'jaaz lil-qur'aan. qur'aanku waa mucjiz baynu maqalnaa, sidee buu qur'aanku mucjiz u yahay? ila aayadda imika hadda waxay sheegtay inuu qur'aanku mucjiz yahay, fa'tu bi suurati mithli baa suurad isaga lamida la kaalaya baa waayahay qur'aanku waa mucjiz baynu leeyahay, sidee qur'aanku mucjiz u yahay? dhinacee qur'aanku mucjiz ka yahay? qur'aanku wuxuu mucjiz ka yahay marka culimadu ka hadlayaan sida maawardi ilaa iyo 20 waji ma 20 qaab, laakiin waa soo koobaynaa. qur'aanka mucjizanimadiisa ama dhinaca wajiga ka yahay waxa kamid ah nadmigiisa iyo usluubka, qaabkan u qoran yahay, habu dhacan u yahay. qaabkii gabayga ma aha oo gabayga waa taqaanaan buxuurtiisa tawiil iyo basiid iyo rajzi iyo mutaqaarib iyo buxuurta gabayga waa la yaqaanaa 16 ka baxay. nasrina ma aho nasriga waa la yaqaanaa. marka usluub aan labadaaba ahayn weeye. marka nadmigan u yaala haddana waa nadmi cajiib. nadmigu u yaaliyo qaabku u dhacay iyo habu dhacu leeyahay iyo dhacdadu leeyahay mid cajiib weeye. waa kow. dhinaca kale waxa weeye axkaamtiisa, axkaamtu ina farayo hadday noqoto maxay ahayd wanaaga, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, akhlaaqda wanaagsan, maxay ahayd taqwada, alla ka cabsiga, ribadu inay xaaraan tahay, soonku inuu waajib yahay, salaadu inay waajib tahay, beentu inay xaaraan tahay, khadiicadu inay xaaraan tahay. adigu axkaamta sharcigu quraanka ku dejiyay waa mucjizo. waxa la yiri duba bididi tabayinu ashyaa maanta iyadoo iskale calmaaniyadu heer fiican bay gaadhay oo maxay ahayd horumar baa la gaaray oo maanta bini aadamku meeshii ugu fiicneed buu marayaa, ayaa maanta asfalu saafiliin tagay oo wixii carabi ka xishoon jirtay ee dadkii jaahiliyada ahaa qaar badan oo kamid ay ka xishoon jireen maanta wax lagu faano xalaal ay tahay oo qowmuluudka kowkay. macnaha axkaamta ay dasaatiirtu dejiyaan iyo axkaamta ay calmaaniyadu dejiso iyo isgarab dhig axkaamta quraanku uu dejiyey. adigu isweydii qaanuun kasta oo bini aadamku ay keenaan ummadda wuxuu u horseedaa halaag iyo baaba. shuuciyad ha ahaado, calmaaniyad ha ahaado, jinowjaan ha ahaado, wax nasteex ah oo ummadi ay maxay ahayd ku tanaado ma noqdo. guryo la dhisay aniga hay sheegin iyo fooqayo waxa cid walba samayn kartaa. quraysh wadda beeray lahaayeen oo
reer madiina beri ka shaqaysan jiray fircoonba waa kii ahraamta dhisay fircoon baba kaba injineer sanaaye hadday noqoto qaanuun maxaa keenay maxamed oo quraata calayhi salaatu wasalaam qaanuunkiisu ka fiicnaa adduun wax qaanuun soo mara macnaa waxaad arkaysaa inuu qaanuunkani ka yimi maxay ilaahay xaggiisa inuu ka yimi subxaana wa tacaala qur-aanku wuxuu mucjise ku yihi ka warramaya ilaahay buu ka warramayaa sifaadkiisu ka warramaya ma jirta diin ilaahay nasahday oo qiimaha iyo qaayaha uu leeyahay tilmaantay oonta islaamka ahayn kiristanku maray ku dhaahdaan ilaahay baa wax dhalay oo qaar laydhaan saaxiibuu lahaa qaar dhahdaan waa faqiir nimba meel buu ku dhufto aragteen dad diimuhu sidii ilaahay u aflagaadiinayaan ciidi ka warramayso wax laakiin ilaahay hufoo hagaajiyey oo fidradii ilaahay uu ku abuuray bini aadamku wax la jaan qaadi kara wax ku sifeeyey islaam baa la hayaa ilaahay sifaadkiisu ka warramaya haddaba nebi maxamed yaa sifaadka ilaahay u sheegay yaa ilaahay uga warramay wuxuu ka warramayaa qur-aanku ghaybiyaad badan oo ay ka mid tahay aakhiro nebigu aakhiro ma tegin nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka hadlayay aakhiray ahayd cidda ogaan kartaana waa nebigu qur-aanku wuxuu ka warramay ummadihii hore qowmu nuux iyo qowmu caad iyo qowmu saalix dadkaas o dhan buu ka sheekeeyey nebigu ma joogin calayhi salaatu wasalaam xilligoodii yaa u sheegay makuu joogay meeluu u dhaafay ma jirto bal kiristanku inay aaminsan yihiin in ilaahay saddex yahay oo saddex ilaah ay isku yihiin oo thalithu thalaatha uu yahay isagoon shaamna tegin caqiidadoodana aan soo akhrisanoo isagoo maka jooga ayuu tilmaamayay markii kutubtoodii la baadhinay sidii nebigu u sheegay waa lagu arkay caqiidadii aaminsaneen faasidka ahayd ayaa lagu tumay waxay aaminsanaayeen oo dhan baa qur-aanku khilaafay oo ah nabi ciise nabi ciise inuu ilaahay yahay in la dilay waxaasoo dhan baa nebigu khilaafay yaa u warramay u sheegay kaas ghaybiyaadka ummadihii hore wuxuu mucjise ku yahay qur-aanku mustaqbalka inuu ka sheekeeyo in maka la furan doono dadku soo islaami doonaan in diintani guulaysan doonto isagu nebigu maka jooga oo la tacdaraysanayo oo la eryanayo ayaa ilaahay difaacayay subxaana wa tacaala oo mar walba loogu maxay ahaydey ballan qaadaya inuu guulaysanayo goormuu guulaystay wuxuu guulaystay wax ku dhow 20 sano kadib 20 sano kadib wax ku dhow ayuu nebigu ka furtay maalinta halkaa maxay ahaydey lagu cagajugleynaya calayhi salaatu wasalaam wax aan dhicin baa looga soo warrameeyey maantana marka qur-aanka akhrinaa ku arkaysaa waxa qur-aanku mucjise ku yahay cilmiga ku jira ha noqdo cilmi taariikheed ha noqdo mid dhaqaale ha noqdo mid siyaasadeed ha noqdo mid saynis ha noqdo mid juqraafi kala qaadamayno culumta ku jirta ayuu qur-aanku mucjise ku yahay oo maanta maalinba mid cusub la ogaanaya waxa uu qur-aanku mucjise ku yahay sadwatu lilquluub inuu quluubta wax uu qabanayo iminka maanta haddaan kuu sheekeeyo qalbigaagu isbedeli maayo laakiin haddii qur-aan lagugu akhriyay qalbigaagu isbedelaya khushuuc baa ku gelaysa qofka dareenkiisa baa isbedelaya oo maxay sababto qur-aanku wuxuu mucjise ku yahay akhrintiisa lagama daalo hadda ka soo qaad haddaad iminka akhrido ka soo qaad haddii buugaad akhrido kiis gabaygii sayidka oo kale ama maxay ahaydeen afqalooco kale haddaad akhrido haddaad mar akhrido ama 2 jeer bas cimrigaaga dib oo dambaysan akhri lagama yaabo waxaa laga yaabaa inaad akhrido mar masala kaa gashay maraad baxdi ku samaynayso inaad dib u akhridaa laga yaabo dib masala kale waad oga eegto laakiin aad habeen kasta aad akhrido ku celiso wax macquula maaha laakiin qur'aanka waxaa laga yaabaa qofku inuu 3 jeer maalin kasta u dhameeyo haddana uu ku soo celinayo mabdaaliyaba u wadaa kii xataa macsida ku jira qur'aanka inta badan aan akhrin hadduu sanadkii mar akhriyo ama bishii mar akhriyo ama dhowrkii bil mar akhriyo ka daalmaayo maalin kasta uu akhriyo way cusub tahay habeen kasta inaga salaada qur'aanka lagu tukiyaa oo salaadaha wadna ku tukayna ma daalo mana raha war maanta naga bedel albaqara xagad ku wada oo miyaad xagad sidaa tahay habeen la canaanaya ma jirto haddii caawo dhan albaqara lagu soo celinayo iyo haddii caawo dhan maxay ahaydey hal suurad lagu tukado qof odhanaya halaynaga bedela ma jirto ramadaan kasta waa inaga tukano taraawiix qur'aankii ramadaantii hore lagu tukmay ku tukanaysaa sida ramadaantii hore waad khushuucsan caawo waad khushuucsan tahay wax si ka bedela ma jirto daga sabaayir iyo waan ka caajisay ma jirto muxuu kaga duway marka hadaba quraanku ilaa maanta haddaan maalin kasta aan ku akhriyo maxay ahaydey gabay ama aan ku akhriyo lagama yaabo inaad ku celiso mar walba qofku tayo hala bedelo waxan shay kale ku bedela kitaabkan ka guur kitaab kale kan ka bedel kitaab kale habeenka soo kitaab cusub akhriyo
intaasi haddaba waa si guud in ku saabsan qur'aanka markaa maxay ahaydee mucjisiis bal qaabku mucjiso u yahay inta markaan kasoo gudubno waxaa laga yaabaa inaad igu tiraahdo oo anigu soomaali baan haye ama chinese baan aho balaaqada qur'aanka ma aqaano nin carbeed mey markaa sidee baa qur'aanku mucjisa aniga ku noqonaya horta qur'aanku dadkii carbeed mucjiso ku noqdo warkooda halkayga iska dhigo balaaqadoodii aftaanimadoodii meel buu kusoo reebay adiga wuxuu mucjiso kuugu yahay bimacaanihi macaanida qur'aanku bixiya adigoo soomaaliya isku soo dhaka weyn oo carabi ma garanaynin qur'aanku wuxuu mucjiso kuugu yahay macaanida uu bixinayo waxa uu ka warramayo saynis ka warramayo taariikhdu ka warramayo qiibiyad ka warramayo aakhiradu ka warramayo axkaamtu ka warramayo akhlaaqda iyo dhaqanka uu ka warramayo kuwaasaa markaa adiga mucjiso kugu ah marka maanta nebi maxamed waxaa ka sheekeeyey oo ummadihii hore ka warramay oo waxa dhici doona ka warramay wixiina saa ay u dhaceen intaas adiga inuu carabi noqdo inuu soomaali noqdo midna wax ta'athira ku leedahay ma jirto inta markaa kasoo gudbo oo muqadimadaas hadalkiisa hadda waan soo noqdo ayaa ictiraad buu keenay wuxuu yidhi yaa xakam noqonaya waxa la yidhi maxay ahaydey fa'tuu bisuuratin milihi yaa xakam noqonaya yaana kala xukumaya maadaa ya xukumaya islaama ma anaa ku xukumaya macnaa yaana xukumaya buu jiraa qur'aankan waxaan ogay dadka ina xukumaya mar hadduu qur'aankii usluub ka warramayo usluubkii carbeed iyo usluub balaaqo uu ku qoran yahay dadka ina kala xukumaya waa dadkii luqadda carbeed garanayay waa dadkii qur'aanka challenge gareynayay ayaa la yidhi idinku la kaalaya looma dirin cid kale dadka aqoon-yahankoodii iyo suugaanyahankoodii marka la isu garab dhigo nin kastaba uu garanaya ka saxan weliba qur'aankan wuxuu soo degayo reer maka la carinaya iyadoo nebigu maka jooga calayhi salaatu wasalaam ayaa lahaa balla kaalaya maxkamadda maka yaa fadhiyey maxkamadda maka abujahal baa haystay hadduu xataa qur'aankan oo kale intuu la yimaadaba ku qalluucin lahaa nebigu odhan lahaa waa naga lamid oo kaa adkaanaye mar dambe yaan lagu arkin adigu hadlaya aamus maka nebigu isagoo fadhiya calayhi salaatu wasalaam oo mustadcaf uu yahay oo qurayshoo dhani ay meesha joogto ayaa uu carinayu lahaa bal qur'aankan oo kala keena ma aha nebigu intuu madiine tegey boqortooyihii dowlad dhisay kadib dadkii uu ku leeyahay qur'aankan ii keena maaha makuu nebigu dhex jooga maalintan calayhi salaatu wasalaam qur'aankan leeyahay keena carab iyagaa dowladdii haysta iyagaa madaxtinimadii haysta iyagaa askartii haysta iyagaa dhaqaalii haysta wax walba iyagaa haysta maxay u keeni waayeen maxay iyagu intay keenaan oo maxay markhaatiga iyagu u noqon waayeen oo qaadiga u noqon waayeen oo kafuliye u noqon waayeen ilintaa bay awood karayeen haddaad maanta igu leedahay marka haddaan kitaab qur'aan aan soo qorqoro haddaan soo qorqoro mid qur'aanka lamida adiga kuga imaada iga aqbal maysa haddaad aniga maanta aad igu leedaho maanta qof muslim awood labaa tahay aad leedahay maalintii nebigu makuu joogay calayhi salaatu wasalaam inta iyagu ay wax soo yaro malmaluuqaan maxay maxkamaddooda u keeni waayeen odayaasha qurayshada inta ay hor keenaan u xukumi waayeen yaa u diido ka hor istaagay mise quraysh adigaa uga aqoon badan luqadda carbeed dadkii carbeed ma adigaa uga aqoon badan ma adigaa uga naseexsanaa ma adigaa uga juhdi iyo dadaal badnaa inay buriyaan oo ay la yimaadaan waxaa lagu cariyey weliba rag la cariyey oo maxay ahaydey xiliyataabad la gaarsiiyey bay ahaayeen way isdifaaci kari waayeen maxay isku difaaceen nabiga inay dilaan calayhi salaatu wasalaam tamartu intay dilayaan oo heerkaa gaarsiinayaan bal waxa laga codsaday waxay inay suurad ka mida la yimaadaan maxaa intaasoo dhibaato u keeni kari waayey maxay ahaydey indhasaabay maxaa awooddii biyo kaga shubay aakhiraa geela xooggiisa la tusaabaa la yidhiyey maxay u keeni waayey maxay la sugayeen intii beder lagu xasuuqayey ee lagu dilayey ee maka la qabsanayey ee dhulkoodii ayagu shalay ay joogeen laga qaadayay madaxdooda loo dilay haddii waxay ku badbaadayaan quraatay ahayd inay la yimaadaan suuq qaato macnaa waxaad arkaysaa marka dee afkaaga iyo dhegahaagu markaan ismaqlayn waxaad doontaad iskaga hadlaysaa fakaanamaa dee biduuni raqiib walaa maxay ahaydee markaan cidba kula xisaabtin waxaad doontaad iskaga hadal qodobka hadda markuu uri ayaa waxaynu kaga soo gudbaynaa qodob labaad buu sii raacay waxaan filaya malaa qodobkii dhowr tanaasna wuxuu yidhi dad baa keenay markaas ka hadlaysa ila hadal aad lahayn iddaa kuma idhaahdee dadka qaar baa qur'aanka wax la yimid libi sida zabraa iyo musaylamat alkadaab iyo ayaa wax sajcigan qur'aanka sajci la mid ah raggaasaa la yimid macnaa wuxuu ka dhigay maxay inaan qur'aanku wax cajiiba la imanine wax la mida inta lala yimid la barbar dhigay oo maxay ahayd lala mid noqday horta waxaan leenahay qodobkaa horta aad iyo aad wax meesha qabtana ma aha munaasibna inuu hadalkaasoo kale ku dhawaaqa meehayn sheekhiisii cabaas cabdinuurna uu ku khilaafay arrinkaas cabaas cabdinuur muxuu yidhi cabaas cabdinuur oo hadda isuu milxida calmaarimahaas ka sheegtay oo sidiisanoo kala gaaloobay baa wuxuu yidhi markuu ka hadlayay qur'aanka mucjisadiisa ayaa wuxuu yidhi
cabaas cabdinuur wuu ictiraafay marka inaan qur-aanka cidila iman karin. wuxuu cid la iman karto qur-aankan oo kale ma jirto. haddana wuu isbarqabto cudurdaar buu keensan marka inuu ninkan waxaa arkaysa cabaas cabdinuur waa yar caqli dhaamaba inuu saasoo kale cabaas cabdinuur sidii cabaas cabdinuur kale inuu yaraa sameeyaabe saasaa u dhaami lahaysna. dabeed wuu isbarqabtay cabaas cabdinuur wuxuu yiri mar haddaan la iman karin buu qur-aanka oo kale horta cid ma samayn karto kow. laakiin acmaasha waaweyn ciddaa samaysay mooye cid kale lama iman karto. cidda samaysay mooye camalka weyn ee qiimaha iyo qaayaha leh ciddaas samaysuun baa la iman karta. laakiin cid kale oo la iman karta ma jirto. waa hadda mulxidkaasaa ictiraafsan in qur-aanka la iman karin. laakiin haddana wuxuu isku dayayaa inuu isdifaaco oo xagga dambu maxay walaakin buu xagga dambe kaaga daraya. walaakin taasaa u dhaantay inuu iska isticmaalo. markaasaa wuxuu soo qaatay tusaale wuxuu yidhi cabaas sida aflaadoon iyo jaaxid iyo maxay haydey hamadani iyo badiicu zamaan alhamadani iyo raggaasina adabkay la yimaadeen iyo sugaantay la yimaadeen iyo aflaadoon sayniskuu la yimi cid keeni kartaa ma jirto miskiin. badiicu zamaan waa taqaanaan abu fatx iskandari kaga sheeki jiray marsiga maqaamaadkiisa maqaamaad badiicu alhamadani oo maqaamaadku ka soo qaatay maxay ahayd xariiri. marka wuxuu yidhi sida aan aflaadoonba sayniskiisa loo keeni karin jaaxid sugaantiisa loo keeni karin badiicu zamaan aan loo keeni karin maxay ahayd maqaamaadkiisii oo kale saasoo kale isna qur-aanku weeyaan. macnaa muxuu kaaga dhigayaa waxaa jira waxyaaba xataa bini aadamku markay sameeyaan ciddii samayso quraata u khaaso cid kale aanay samayn karin. innaga maxaa naga rabaa marka dee dacwadan dambe ile marka hore waynala ictiraafo waynala qaato godka hore ku jabay laakiin dad dambe uu galay unbaa la rabaa in meesha ka saarna inagu dacwadan dambe uu sheegto marka wax jira maaha. bini aadamku waxay sameeyeen wax adigu aad sameeyay anigu maanta waxaan sameeyay qof walba uu samayn karaa marka. aflaadoon wuxuu sameeyey cid walba samayn karta. badiicu zamaanku maanta ka hadlayo xariiri waa ka dambeeyey maqaamaadka xariiri waa taqaanaan. maqaamaadka xariiri iyo maqaamaadka maxay ahaydey badiicu zamaan waxa wanaagsan maqaamaadka badiicu zamaan maqaamaadka xariiri waa wanaagsan. badiicu zamaan baana ka horreeyey oo dariiqii uu mari lahaa u sii jeexay weliba oo labada magacee xataa uu xariiri adeegsanayay maxay ahaydey maqaamaadkiisa ku jira maxay ahaydey uga dhambiil qaatay ama uga soo tusaale qaatay kuwii maxay ahaydey kuwii badiicu zamaan. badiicu zamaan oo maqaamaadka bilaabay oo aasaas iyo guddigu ahaa ayaa nin ka dambeeyo xariiriya daaqadda ka saaray oo maanta adabka ka wanaagsan ee la akhrista ee aynu naqaanaa lababa yaqaanba cidmaba maxay ahaydey ictimaadaba kii badiicu zamaan kan la ictimaada waa xariiri. marka lama iman kara miyaa warkaas war caqligaloon aqbali karna miye war macquulo wax lagu hadli karo waxaa sameye dacwo wax laysku difaaci karo ile ilaahu haa iyo maya barna hanigooda yeedhisiin waa dhibaatadaas ile. aflaadoon sayniska wuxuu ku soo kordhiyey ama waxyaabaha ku soo daray ama kuwa kalaba ha ahaadaane iyo maanta raggii ka dambeeyey newton iyo einstein iyo maxay ahaydey waxyaabahay kusoo kordhiyeen kee wanaagsan kee ka fiican. saa usii fahansa su'aal labaad hadda maanta waxaad og tahay moobilada shirkadaha ugu horreeyay moobilada soo saara kuwa ka dambeeya waxaa jira daaqadaba ka saaraba waxaa jira moobilka la soo saaro kuwa lamid soo saaraan. hadda nokia kale ka soo qaad shirkado waxaa jiray weligoodba shaqayn jiray laakiin haddana kuwa qaabkii ay u soo saari jireen iyo kuwii la isticmaali jiray kuwa ka fiican ba soo saaray oo apple iyo samsung iyo marka war ma la odhanayaa maxay ahaydey nokia moobilkeed wax lamid cidma soo saari karto kuwa ka fiican maxay yihiin ee daaqadaba ka saaray khariidaba ka saaray maxay yihiin. in la keeno moobilka adigu aad samaysay iyo smartphone-kii aad samaysay mid lamid la keena iska dhaafee ka adigu aad samaysay 80 kun oo jeer mid ka wanaagsan baa la sameeyey. maqaamaadkii uu badiicu zamaan sameeyey iska dhaaf mid lamid in la sameeyey mid ka wanaagsan baa la sameeyey xariiri sameeyey. hadda maanta waxaa tusaale ka soo qaadaa wadamada tartama ee nuclearka iyo awoodaha ku tartama ma ogtihiin maalin kasta in la tijaabiyo nuclear cusub iyo qumbuudiyada cusub la tijaabiyo. dayax gacmeedyada hawada loo diray maanta marka hore Mareykan isagu sameyn jiray u ahaa gundiga dad badan baa maanta samaystay China samaystay kuwa kalaas Hindiya samaysatay inta wixii uu sameeyay wax lamid ah la sameeyay wax kuna isbaxta la sameeyay. marka ninkii waddanka ku horeeyay nuclearka sameeyay maxaa loogu diiwaangeliyay loo oran waayay
mar haddii nuclear uu soo saaray maraykan cid dambe oo soo saari kartaa ma jirto. ruushku muxuu sameeyey ma dhagxaan baa ma bayteriya ruushka nuclearkiisu kuuriyada koodu muxuu yahay nuclear maaha kaasi miyaa markaad iska hadlaysad wax walba waa iskaga hadli kartaa mogta waxaad doontaad iskaga hadli kartaa marka waxaan uga jeedaa tusaalahan ugu dheeraaday in aan tilmaano xataa dacwadan iyo cudurdaarkan uu sameeyo cudurdaar macquul wax kastuu bini aadan sameeyo inta la sameeya lagaga fiicnaada wax kastuu bini aadanku sameeyo inta la sameeyo ayaa weliba lagaga sii wanaagsanaadaa oo lagaga sii fiicnaadaa dad la tartamaa jira hadda maanta adduunyada ma jirto shirkad keligeed mobilada samaysa intaasoo shirkadood baa jiro oo la tartamaya shirkadda samaysa adduunyada maanta ma jirto dowlad keligeed nuclear leh intaasoo dowladood baa jira oo kula tartama nuclearkii adduunyada keligeed ma jirto dowlad dhaqaale iska haysata intaasoo dowladood baa jira kula tartamaya mid saynis ku tartamaysa intaasoo kalaa saynis kula tartama nin keligii fiisigisaana ma jira boqolaal fiisiga yahan baa jira maxaa haddaba waayahayee loo keeni waayey qur-aankan oo kale ma jirto marka waxa uu xataa cabaas ku cudur daartay wax macquula maaha taana kaga gudbo qodobka labaad wuxuu aad u ammaanay uu sheegay markaa waxaan filaya waa kii 11aad baan u malaynayaa wuxuu ammaanay oo aad ugu tiiqtiiqsaday oo yiri waxa sidaasoo kale sameeyey musaylimatulkadaab ayaa isna quraan samaystay oo ijaaz sajcigaasoo kale la yimido waxda waxaan quraan ku gooniya maaha buuri marka bal way haddaba aan iska rab dhigno macnaha halkaa wuxuu kaaga tusayaa wax inaan awoodan iyo ijaazkan iyo maxay ahaydii balaaqadan wax quraan ku gaara inaanay ahayn bal haddaba waxyaabaha uu iyo quraankii uu samaystay musaylan bal eega keenina waa dee eegi doontaan insha allah wuxuu yidhi yaa diftacu binta diftacayn naqiyu lkalim tanqiina تنقين بولي لا الماء تكترين ولا الشارب تمنعين رأسك في الماء وذنبك في الطين وقرآن هذا وقرآن كما سيلما وحكم لي الرح يهول برح دارين هذا الكاج عادي وحده محي هيدي حن ملحة وانا اسكهي سيسا بيها انا مو وسخيسيت لا الماء تكترين بيها وسخ مشبتي قفك بيها عبين ومدي ديدو دي بيها متها عبينو انت اكيلا صوب waxaad ka mooriis taagtid ra'suka fil ma inta badan madaxaagu biyuhu ku dhex jiraan wadanabuka fi din dabadana dhooqaad marka aad inta badan aad kula jirtaa buuri bal idinku ilaah baa ku dhaariyay macnaheeya haday noqoto alfaadu adeegsanaya rakaakada ku jirta haday noqoto macnaha uu bixinayo ila quraanku macnuu bixinaya marka lagu hadlayo ama aakhira lagaala hadli adduun baa lagaala hadli wax adiga ku dana lagaala hadli adiladii ilaahay adiladii nabiga kaleey salaam kuwii macaadka waxaas oo lagala hadlaya isna kan uu taagay marka tusaalaha labaad si aad u yeertaan ninka dhan uu ku faanay macnaha qofku markuu dee meel iskada way wax uu iska hadlaya bogti wuxuu yiri ya wabar inma anta iraadu wasadrun buu wabar kuwa wax yaro sida tik wax la yiraahdo maxay ahaydee waa sida jiirko kale waa tik wala la yiraahdo walay hay buuri adigu waxa aad tahay buuri maxay ahaydee laab iraadu wasadr wal asri buu isleeyay marka canjiro wal asri inal insaan la fi khusri illa alladina aamanu wa amilu salihat marka wabar iyo ayadaas dama isku noqon kara halkan waxa ninkan wuxuu ka warramayaa xayawaan yar iyo jiir yar buu ka sheekeynaya ayaduna waxay ka warramaysaa qofka nasteex adduunyo nasteex aakhir wuxuu leeyahay oo ah dee maxay ahaydee inal insaan la fi khusr inuu qofku khasaaro ku jiro badbaado aanu lahayn maxaa laga badbaadayaa haddii mar cudurkii lagu sheegay illa alladina aamanu ku iimaanka laga helay adduunka bad iimaanka ku badbaadaysaa aakhirad ku badbaadaysaa jannaad ku helaysaa wa amilu saalihaat amal wanaagsan baa lagu badbaadayaa haye وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حق يصبر كبار لسكوت الدار ما أيدو أي كل هذا محي هذه الصبر كي أتكيا محي هذه حق يسكو كاشلة هذه الناس الدنيا هذه آخرها هذه حي كل هذا أيدا يركوشكت ومعناها بالعربي أيدا إذا أنت محي هذه حروف تدو أي تهاي أي بحين يسمك
مركا وحوري والمبذرات زرعا والحاسدات حسدا والذاريات قمحا والضاحنات ضحنا والخابزات خبزا والثاردات ثردا واللاقمات لقما إهالة والصمنا لقد فضلتم على أهل الوبر وما سبقكم أهل المدر رفيقكم فامنعوه والمعتر فآووه والناعي فواسوه. وقرآن كم مسيلمة. والمبذرات زرعا وزرع محاها هذه beerta ku salinaya beeriya والحاسدات حسدا ay soo goynaya ana waa qamadidii moogti wadaaxinaanta daxnan ee maxay ahaydey ridqaya qamadidii wal khabizaati khabza ee dubaya والثاردات ثردا ee thariid ku sameeya thariid kuwa daqiiq iyo inaad isku karayso maxay ahaydey hilib واللاقمات لقمة ay liqaya cunaya buu leeyahay ihaalatan wasamna subagii saliidna ku daraya fadiltum ala ahli alwabar waxa la idinka fadilay buu dadka maxay ahaydey ahli alwabarka ah dadkan teendhooyinkii miyiga iska degan wama sabaqakum ahli almadar kan idinku horeeyaan dadka guriga dhagaxa ku jira buu rafiiqukum famnacuuh saaxiibkin difaaca garya gardarraba marka waxaan uga jeedaa bal ilaahay baa idinku dhaariyay ninkaasi qoosh iyo daqiiq ka hadlaya waa adigoo maanta de nin maxay ahaydey mudalab ah raashin weydiiyo raashin ku tiriyo oo waxaas yaala maxaa bal hadda iminka waxaan aan akhrinay bal maxaa macne ku jira wadaaxinaanta daxnan iyo wal khabizaati khabzan iyo wathaaridaati thirdan dumarka maxay ahaydey qoosha garaacaya ee hilibka karinaya ee saliidiisu ku daraya bal adigu dhinaca gee meel alla iyo meelo kaxaya ma jirto laqad fudiltum ala ahli waxa la idinka fadilay dadka miyiga degan yaa u sheegay bal beentiis weeyaan yaa fadilay ma adiga fadilay musaylimo ma ilaahay baa fadilay ma ilaahay baa isku been abuuranaysaa ilaa ma adiga fadilay ma ilaahay fadilay wax ka dhaxyaa ma jirin ahlu wabarka iyo ahlu miyigu in ahlu wabarku ay maxay laga fadilay yaa ku sheegay waa macnaha ninka halkaa taagan weeyaan wuxuu sii raaciyay markaa wanaasicaat gharqa iyo wanaashitaat nashta macnahooda la garanay isagoo markaa tan musaylimo kala ka qabdhigay bal maqooshkan iyo malaa'igta ilaahay ku dhaaranaya isku mid ah malaa'igta ilaahay ku dhaaranaya wanaasicaat gharqa wanaashidaat nashta macnaha ay bixinaysaa macne qof walba macne u ziyaadinayo oo wuxuu ka faa'iidayo oo adduunyo aakhiraba anfacayo weeyaan aayaddu waxay ka warrantay markaa malaa'igta dadka gaalada aan nafta si xun uga qaadaya ee si silaca uga qaadaya ilaa qofka cadaabkiiba adduunyada kusii arkaya gaalku intaanu kii aakhire gaadhinba ayaa kii adduunyada uu sii qabsanaya malaa'igtu markaa laba qaybood ba ilaahay malaa'igtii ka dhigo kuwana waa kuwa nafta gaalada sida adag uga qaadaya iyo wanaashidaati nashta kuwa si dabacsan muuminiinta uga qaadaya waaya malaa'igtaasa ilaahay ku dhaartay markaa subxaana watacaala marka aayaddu macnahay bixinayso arkaysa aayadda maxaa kusii jira qisadii nebi muuse calayhi salaatu wasalaam waxaa ku jira maxay ahaydey fircoon baa laga sheekaynaya waxaa ku jira qiyaamihii baa ku jira oo laga sheekaynaya nafta badbaadadeedii iyo waxay ku badbaadaysaa laga warramaya waxa aayaddu ka warramaysaa maxay ahaydey naftu waxay ku khasaaraysay ku halaagsamaysay baa laga warramaya fa amaa man daqa wa aathara alxayaata dunya baa laga sheekeeyey halka u dambaysay ciribtiisu ay noqonaysaa aayaddu ka sheekaysay fa ina aljaxiim hiya alma'wa baa la yidhi sidoo kale waxaa laga sheekeeyey qofku wuxuu ku badbaadayay wa amaa man khaafa maqaama rabbi wanaha nafs halka uu gelayaa laga hadlaya maxay ahaydey ciribtiisu ay ku dambaynaysay iyo jaa'isadda uu helayo fa ina aljannata hiya alma'wa baa la yidhi saacaddii iyo qiyaamadii bay ka warrantay arnaha kanaad xasiid iyo ila soo meeraysanaysaa qoosh ma isku midda markaa bal labadan aayadood ma isku macni ka warramayaan adduun iyo aakhira laga warramayaa isna adduunyaba inuu nooga warramo musaylima iska daayay qoosh buu nagu wareeriyey waxaan uga jeedaa qofku wuxuu doono iskaga hadli karaa marka lagu leeyahay quraanka lama iman karo idinku musaylima iyo waxa iska rabtaan hadda wanaasicaad waxa iska rabtaan taanka akhrinay wal mubadiraati zarcan iyo wal xaasidaati xastan iyo wanaasicaad iska rabdiga marka intaas idinku halkaas ay kaga filan ba waxa la yiri beenaal markhaatigiisu fogeeyaa marka lagu leeyahay quraanku waa mucjizo nabiga ninkii la mucaasaray ee la tartamayay ee nibinimada sheegtay ee xataa ku qabsay ku qadimayay heer ka gaaray waa ka quraankiisi quraankii musaylima waa ka marka ninka doonaya quraanka mucjisadiisu ha iska rabiga quraanka musaylima iyo quraanka maxamed alayhi salaatu wasalaam inta marka soo gudbo oo qodobka 12aad baan filayaa markii uu mariyay aayadaha ubashir ladina aamanu wa amilu saalihaat ay wuxuu aayadan meesha iskaga soo dhacday marka macna allah iyo macna iyo meel u socotaa ma jirto waa kow aayad waxay laga soo warramay aayadii ka horeysay cadaabka iyo natiijadii xumayd ee heleen gaaladu
munaasabaduna waxa ay keensatay markaa munaasabada ka dhexaysa isagoo haddee munaasabadii gelin nasiibkiisii in dadkii guulaystay iyo dadkii libta helay iyagana loo bushaareeyo waxay ku bushaaraysanayeen iyo acmaashii ku badbaadiyeenna ilaahay weliba uu sheegay subxaana watacaala oo ah iimaan iyo camaal saalix qur-aankuna sidiisaba waa mathaaniyo mar kasta waa lamaane markuu gaalada ka warramo muminiintu ka warramaa marka cadaab laga warramo jannaa laga warramaa kuwa guuldarraysta marka laga warramo kuwa guulaysta marka sababtu wax waa dariiqanna ka bayb oo waxa weeye waa tarhiibkii dariiqan wanaagsanna mar waa tarqiibkii noloshu intaas ku dhisantay nolosha dhanaad aragtay adduunkuba intaas ku dhisantay ninka maxay ahaydey faashilka ah iyo madaxweynaha musuq maasuqa iyo habaarka wadana xilka waa laga qaadaa madaxweynaha wanaagsanna waa la doorto taalaha loo dhiso maxay ahaydey xus ha loo sameeyo waa aragtee adduunka waa saa ku dhisanta ardayga wanaagsan jaa'isad baa loo sameeyaa waa la maamusaa wax scholarship baa la siiyaa kasaaqidka dhacayna waa la reebaa noloshaasaa ku dhisan qur-aankiina maxay ahaydey de ilahay baa bini'aadamka ba abuurayba mar haddii laga soo hadlay kuwii guuldarraystee baaba'ay bal kuwa guulaystay wax guulaysteen baa laga hadlay marka munaasabad ka weyn baa jirta munaasabad ka weyn ma jirto in kii guuldarraystay kii guulaystay la iska rab dhigo labadaa dariiq marka adigu kaa doonta aad ikhtiyaar u leedahay waad maraysa marka dad munaasabad garayn waa nasiibka qodobka uu sii raaciye khaladka labilaatanaad wuxuu yidhi iimaan ayaddu iimaankii inooma qeexinba iimaanka wuxuu yahayba iimaanku oo waxay ayadu tiri aamanuu quraata bes wa camilu saalixaat camalkaan xataa kuniya lama sheegin halkaasoo kaga baxay marka iimaanku iyo islaamku iyo nifaaqa iyo kufrigu waa asmaa'un sharciyun yutalaqa min alsharc asmaada qaar waa asmaa luqawi ah oo luqada lagala kulmaa sida alardu wasamaa dadka carbeed baa la weydiiya ardu maxaa la dhaha horta iyagaa la wareysanaya iimaan marka la idhaa iyo islaam marka la idhaa iyo munaafiq marka la idhaa iyo kaafir iyo gaal marka la idhaana dadkii carbeed la weydiimayey ee diintaa la weydiinaya islaamkaa la weydiinaya nebiga iyo ilahay baa la weydiinaya subxana watacaala marka magac dhanoo maxay ahayde iyo terminology cusub oo diintuba ay keentay oo diinta la weydiinaya inaad maanta diintu may cadday waa jahliga jirayda kutusaysa macnaha qofkani meeqaamku gaadhsiisay bay taas kuu tilmaamaysa marka iimaanku waxa uu yahay ilaahay aayaadka uu kaga warramay subxaana watacaala aayaadkiisa laysa albiru an tuwalluu wujuhakum qibala almashriq walmaghrib walakina albira man aamana wacamila aayadda sii wad laga warramay xataa maxay ahayday acmaashii oo laga warramay iimaanku xataa inuu jihaad ku jiro oo laga warramay sadaqadii iimaanka qur-aankaa tacriifiyey nebigaa tacriifiyey subxaana watacaala calayhi salaatu wasalaam oo markuu u yimid waa kii weydiiyey mal iimaan waa kii nebigu arkaanta iimaanka u sheegay an tu'mina billahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusuli iimaanka sidaas qur-aanka lagu sheegay ee tacriifkiisa qur-aanka lagu hayo ee faahfaahintiisa qur-aanka lagu hayo ee axaadiista nebiga lagu hayo calayhi salaatu wasalaam iimaanku inuu qowl iyo ficil iyo ictiqaad intaba uu yahay inaad maanta tiraahdo iimaan lama caddaynin waxay kutusaysaa maxay jahliga jiray kutusaysaa marka iyo dhibaatada jirta iimaan wixii waa la yaqaanaa inuu iimaanku qowl yahay oo ficil yahay oo ictiqaad yahay cid walba waa ogta ka lagu badbaadinaya kaa uu yahay acmaashan wanaagsanina waa acmaashii maxay hayday islaamka camalku muxuu ku wanaagsanaadaa laba shardi labada shardi waxa weeye almutaabacatu walikhlaas war dhammaaday weeye waxaad camalkaad raadinaysa haddaad leedahay camalkii lagu badbaadayaa labadana wadaadu waa lagu sheegay almutaabacatu walikhlaas qul in kuntum iimaanka iyo camalka wanaagsan la israaciyey isagoo camalka wanaagsan marka horeba iimaanka uu soo hoos gelayo haddana camalka wanaagsani waa camalka mutaabacada nebiga calayhi salatu wasallam shareecada lagu raacayo iyo ikhlaas iyo niyo wanaagsan oo shirki aanu ku jirin maxay ahayd niyo daro kama marka aan ka imaado oo ah maxay ahayd tacriifkii iimaanka ayaa wuxuu ka hadlay isla aayadda aakhirkeeda oo markii ay yidhaahdeen ayadda hortaan soo akhrino wabashir aladiina aamanuu u bushaarey ku iimaanka laga helay wacamilu saalixaati camalka wanaagsanna sameeyey ana lahum jannaat tajri inay leeyihin jannooyin ay soconayso min taxtiha hoosteeda anhar webiyaashu kullamaa rusiquu markastoo lagu arsaaqa minhaa jannada xaggeeda min thamaraatin midho risqi marka lagu arsaaqa midha qaalu waxay odhanay hada aladii rusiqnaa min qablikana kii markii horena lagu arsaaqa wey wa utuu bihi waa loo keenay mutashaabihan isagoo isku amrihii jannada walahum fiiha waxay leeyihin aswaajun mudahara aswaaj daahira oo xayd iyo xiqdi iyo hinaase aan lahayn hum fiiha khaaliduun waana ku waarayaan jannada marka aayadda markaa uu soo hadlayay baa wuxuu yidhi halkan la yidhi qaaluu hada aladii rusiqnaa min qablu wuxuu yidhi waxay idhaahdeen waana lagu arsaaqay macnaha
hadalkiisu marka muxuu kusoo ururay hadalkiisu wuxuu kusoo aruray nimcada iyo midhaha jannada yaallaa waa kuwii adduunka yaallay wax cusub oo naloo keenay ma jirto saasuu marka wax farqiyo u dhexeeya hadalka macnihiisu qaab ku dhacaya wax farqiyo u dhexeeya midhaha jannada iyo midhaha maxaa hayde yaallaa ma jiro dabadeed daliil aan muctabar ahayn uu sii raacsadayna ayadda xaggeeda dambu ka raadsaday aanu nimaadno marka waxa aanu leenahay kow midhahan jannada iyo naciimkan jannada ee jannadu ay leeyihiin ahlu jannuhu haada ladii rusuqna min qabl mar horena nalagu arsaaqay kan oo ah adduunyadii baanu ku soo cuni jirnay macnaheedu ma aha midhahan maanta jannadana lagu siiyey waa kuwii adduunyada ee waxa weeye jinsigan iyo noocan waxa uu la mid yahay kii adduunka aanu ku soo cunay macnaha tufaax iyo muus ile wadalxin manduud baa jannada yaalle muus rasaysane muuskan iyo rumaankan iyo cambahan iyo waxan maxay haydey jinsigani waa jinsigii adduunyada aan ku soo aragnay marka waa kow macquul iyo caqligalna ma aha midhihii adduunka lagu soo cunay ee soo dhammaaday ee adduunkiiba la soo rogay ee adduunkiiba la soo laalaabay midhihii adduunka yaalla inta lasoo qaadan jannada la keenay waxa caqligii kale wataas ma aha isna xataa ma suuraysan karo maxay ahayd qalbigiisa maxay ahayd ka dhadhicin karan maaha innaguna waxaynu aqbalayna xataa maaha wax taala saasaa looga jeeda macquul ba in maanta la idhahdo midhihii adduunyada yaallay muuskaynu naqaano iyo rumaankaynu naqaano ee kan maanta aynu hayno ah oo cayntiisa iyo sidiisaba jannada yaalla ilo kaas sooba dhammaabe kaa laga yiimbe macquul ma ahaba waxa laga hadlaya waa jinsigii waa magacii guudun baa jinsi waxa laga jeeda magaca guudun baa laga hadlaya horta Soomaali marka soo ururiyo waa magacii guudun oo ah rumaankan waa rumaan iyo muuskan waa muus magacay jinsigaas weeyaan inaguna way ognahay iyaguna way ognahay maxay inaanay isku mid ahayn way kici adduunyada laga yiiba kaas isaga buugiisu soo laamayba si uu si faanta xataa inagu adduunyada kaynu ku haysanaa isku mid ka ahayn oo haddii maanta adiga casuumad lagu sameeyo lagu yiraahdo hebel baa maanta ku casuumayo digaag iyo kugu casuumay maxay ahaydey cunto kale oo taad warama maanta niyo guriga la igu sameeyay ninka xaafadiisa digaaga lagu kariyay ka isku digaag ma waa laba digaag oo kala duwan adigu mid gaar ah haysataa mid gaar wala yahay qaab kala duwan loo kariyay laakiin de magacii waati laakiin isla kiisagu haystay gurigiisa yaalin adiga lagu keenay ma ah isla midhihii adduunka yaalo sidoodii jannada la keenay ma ee maxaa meesha laga hadlayaa magacuun baa laga hadlayaa in shaygu magaca ay ka midaysan yahay macnaheedu ma aha maxay inay isku mid yihiin way jannada maxaaba lagu sheegay ilna ma arag ilna ma xataa qalbi iska dhaaf in la arkay qalbiga xataa ku soo dhacay waynu ogni nolosha jannada iyo nolosha isku mid ahayn xayaaba ilaahay ku sheegay nolosha jannada lagu haysto teenan iyo taas isku mid maaha nolol laga gaboobaynin oo aan laga dhimanaynin oo cudur lahayn oo aan maxay ahaydii xiqdi lahayn oo aan xasad lahayn noloshaas weeyaan marka tala adduunka waa nooli aakhir waa nooli marka labada nolol waa isku mid nolosha adduunka waxa ka dambeeya geeri xanuun baa ka dambeeya gabow baa ka dambeeya tacab iyo daal baa ka dambeeya sida markaa nolosha adduunyada iyo nolosha aakhira xagga magaca aan iskaga mid ka ahayn ayaa midhaha adduunyada iyo midhaha aakhirana magaca marka ay iskaga mid ka noqdaan xaqiiqada iyo dhadhanka iyo macaanka ismid aan ka ahayn taas waa koobaad dabeed wuxuu sii raaciyay waa loo markhaati furuuro waxa la yiri wa utu bihi mutashaabihan midhahan mid weeg baa loo keenay kii adduunka marka waxaan wuxuu ugu jeedaa inuu yiraahdo kii adduunka oo kala weeyaan waxaan leenahay wa utu bihi mutashaabihan ma aha mid ka waramaysa midhihii adduunyada wa utu bihi mutashaabihan ayadda ilaahay ka waramaya waa midhihii jannada midhaha jannada isku eeg midhaha jannada muuska jannada kii shalay aad cuntay iyo imika lagu keenay rumaanka imika cuntay rumaankii imika lagu keenay ka shalay cuntay jannadu mar kasta waa isku mid ka adduunku kala duwan yihiin mar waxa jira muuska Soomaaliya iyo muuska maxay ahayd Brazil way kala duwan yihiin waxna dhow duwan yihiin isku mid ma aha isku dhadhan ma aha isku midab ma aha isku arag ma aha isku tayo ma aha isku dharar ma aha xataa ka adduunku waa aragtay kala duwan yihiin laakiin jannadu sidaas ma aha muuskii shalay lagu soo gooyay iyo ka maanta lagu soo gooyay waa isku midab waa isku dhadhan laakiin ka adduunyada qaar baa qurmay macaanayn qaar baa liita qaar baa wanaagsan qaar baa fiican marka wa utu bihi mutashaabihan ma aha markhaati fur loogu markhaati furayo midhihii adduunyadii wa utu bihi mutashaabihan waa aayad madax bannaan oo ka warramaysa midhaha jannada iyo sifaadka ay leeyihiin midhaha jannadu oo ah inay yihiin midho isku eg oo aan sidii kuwii adduunyada ahayn kuwa adduunku isku mid maaha bal xataa waxaan isku mid ahayn maxay si aad u fahanto innaga xoolaheena iyo dadka afrikaanka maanta afrika ku nool ninka afrikaanka timaha adagee
sanka weyne afrika jooga iyo ka ninka reer yurub ee caddaanka ah ama adhigeena aragteen maxay ahayd kurka madow ee waddanka jooga iyo adhiga maxay ahayd Brazil ku nool ama ku nool maxay ahayd Australia adhi isku mid maaha adhi wada karbaasho wada busta oo maxay ahayd dhan hilibkiisu nooc kala dhan ma yaxta weeyaan adhigeenu dhadhankiisa waa aragteen isku labada adhi isku dhan maaha isku midab ma aha isku tayo ma aha haddii doonaan xitaa isku caana ma aha isku in lagama liso kuwii adduunkaasaa u kala duwan markaasaa war wixii adduunka yaallaa kala duwanaan jiray waxa jannada yaallaa ma kala duwanaa midhaha jannada yaallaa waa isku mid midabkooda dhadhankooda ma kala duwana adduunkaa lasoo kala duwanaan jiray wadaaddo baa layidhi ma garat marka aayaddu ka hadlaysaana taas weeyaan ee ma aha markhaati fur siduu isagu sheeganaya maxay hadalkii hore iyagu ay sheegeen lagu markhaati furayo waxaan filayaa qodobka 24aad inaan isna caawa kusoo koobi doono maadaama saacaddii aan hadlayay intaa ay noqotay intaasaan kusoo koobi doonaa insha allahu wixii wallahu aclam wixii aan ku khaldamina famin nafsi min shaytaan wixii aan saxayna famin allah wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu